magacii waxa la helay Nuur Xuseen former councillor Tarbaj aan ku magac dheerahay waxaan ka hadlaa arintan impeachmentada ay MCyalka ay wadaan aniga advice county-na mihi waxaan ay oday wajeer waxaan aqaanaa wanaaga wajeer waxaan aqaanaa nabadgelyada wajeer rajadabula ee godama isku dheer wajeer intaas meel aan xal ka gelin ma leh waxa wajeer dan u aan aad u aqaanaa arintan ay MCyalka ay wadaan waxaan u arkaa interested tooda waxaan ahayn oo arintan u sameynayeen ma leh laba week lacagtan ma noola marina miis noola marina ay lahayn markii lacagti gorgortama ay ku jiraan mar waxay ku gorgortamayeen bil u fuulo waxay noo fuushaa ay leeyihiin ay bank ay noo fuushaa mar waxay leeyihiin meel hablaan wax ka rabnaa mar waxay leeyihiin waxaan rabnaa ka maxalda ka garan oo 2 milyan aan rabnaa ay leeyihiin aniga haddaan oday wajeer aan ahay waxaanu arkaa MCyalka inay dan reer wajeer ay wadin mar allaala oo lacag ay jirta ama waana injiga wax ay helaan oo qof waana inta la beegareeya ay u soo qaadayeen pressure lacagta dhan si ayaga ay ku qaataan markii koowaad ma markii labaad ma waxaan ognahay mar labaad ay waxaan sameeyeen haddana lacag yar jirta lacagta awoodeed ay u sameeyeen waxaan marka aniga waxaan dadweynaha reer wajeeraan u sheegaa qofka siyaasad raba waqtiga siyaasada soo dhow waqtigeeda soo dhow duqa waa la dhigi karaa dhinac u istaag wiilka wajeer county ama south ka imaada ama east ka imaada ama north ka imaada ama west ka imaada ama la dooran doona ma qof kale la doorna ma qof Kenya ka imaada la doorna qof reer wajeer la doorna kuwa waxa sugeena nafaaskooda waqtigooda sugeena ay nagu gabanin lacag ay ayaga rabaan ankastoo MCyal dhamaal arintaas ay ku dhaceen koox horbooda yaa jirta waxa miina sema u kuweli run cad aan sheegaani MCyal dhamaal ma dhihi kara maxay kuwa markasta arintan diidan waa jiraan laakiin magaci waxa haleena waxa la hal koofiyaasi juwaanka dhan waa urina magaci dhan waxa haleena kuwa yar interested wata aniga waxaan cadeynaa haddaan oday reer wajeerahay arintan lama qabna kumana raacayna aan reer wajeernahay oon odayaal nahay dabciga MCyaasha iyo speakerhooda ay wataan oo maran ahayn laba ahayn oo dan shakhsi ay u wataan ee markasta markay mataqaana lacag la marinayo mislaga imaato ay mataqaana impeachment iyo waxa loo joogin la imaanayaan ilaa sidan had noola yeelo hadii kale ahayn impeachment sameynayna ay mataqaana MCyaasha oo shalay soo dooranay oo wiilasheena yaryar oo soo dooranay ay markasta wadaan taas aad iyo aad baan ugu xunnahay haddaan odayaal wajeernahay waxaan ku guuri karno maaha waxaan leenahay annaga sababta idin dooranay taa maaha inaad wadanka horimarisaan inaad mataqaana executive-ka aad garab la qabataan ayaan idin dooranay laakiin dabcigan waan ka xunnahay mana ogolin waana ka horimaadsannahay waana ka tashanaynaa wajeer ahaana kuwa dabciga wata way isoogiya ayagana inay soo noqonayeen maxay yeelay Britana kaararkii jeebkan ku jira ayaa u soo qutu dheeraanayeen marka mana yeeleen waa loo xisaabsan yihiin waxaad MCyal aad ogaataan hadda waxaad doontaan sameeya boodbooda birna gacanteen umad ku soo dhici doontaan taas wajeer dan uma aha wajeer inna dan uma aha mana ogolin waana ka horimaadsanay waxa la yaab leh baa ka dhacay Wajir County 47 county laga soo doorto wadanka Kenya markii 47 county oo wadanka Kenya laga soo doortay waxa ma aragtay maanta 25 milyan bixina Wajir County kala halgaarka markaas bixinay Maxamed Abdi 25 milyanka wuxuu dhahay manifestoodiisa ay ku jirtay wuxuu dhahay aniga maadaama anahay gafanaga Wajir tuulo walba ma tii kara ward walba ma tii kara waxaan adeegsanaa dadka wawlalka laga soo doortay maadaama aan wawlalka dadka laga soo doortaan adeegsanaa waa inaan 25 milyan aan mar walba aansi markii lacagta la xisaabo hadda ay qaateen MCyaasha waxay noqotay 75 milyan ay noqotay 75 milyan asaddankii ward as Maxamed Abdi Asbe 75 milyan waxaas u bixi waxa waaye inaas ma aragtay every ward alisi intaas ward kuwa waxa la si 75 milyan waxaana u bixi sifa ay dadweynihii wardkaas laga soo doortay as isugu ay isku soo gaarin dhibkooda maanta reer wajeer waxaan ogsanaan dad badan aan war ka haynin lacagtaas ay tog MCyaasha lisi
oo u malayna amsiyaasha kuwii zamaan inay yihiin waqtiga bokey asku jiray ninkii hore oo maxishmuagahay 25 million kaas iska dhaafi 10 million ما أركز جرين إذا 1 مليون ما أركز جرين MCS واحد إبكان كاني 25 مليون كاس عدفك كاني هدي أسمع أشمع محمد عبدي أصلا حريص أسوبي أضي وراني تدوينها مجارة إذن كي جارة بلعتاني تدوينها كسمة تدويني العتل والسمة هاي عدرار والبلاقيلنا أو يوك أي قاتين maanta waxa ay leeyihiin bendin bilka ay sheegayeen hal ruux oo dadweyne ay u taataynayeen oo xafiis intay keenaan war ninkaanaasan ninkaanaas ama gabadhaanaasan ay leeyihiin ma jirto waa wax calooshood u shaqaystayaal marka waxaan leenahay MCAsha walaalayaalow war ilaahay ka cabsada bil Soomaali jooga wajiga county waa halaysan godowiyaasha kale oo maartay county-yaasha kale dadka laga soo doortay dhibka aad maanta ku haysiin wajeer county oo loo malayna maxamed cabdi inaan isku hay waxa ku hay waa idinka anaga daqomina meenin aqalgayn waa kaamil dadweynahan waa ka dhadhacsiinayna waxaad uga haysiin waxa waaye 25 million oo ada counties la siinayn aad qaadatin horta boorka waxa la yiraahdaa ka yar bergoyad le inta meeshan isku imaado odayaal leh ee khayr Allah siiyo oo ka daqati waxa dhibka hadda kor wajeer lagu arko barka dhacahay أنت عارف ده أين جوجو لبعضن إياه صدق سنة شيء بسواه administration ما كل حجري MCA الله وصل سجني 1969 بركة حضور وجانا ساوي ده تاني أنا كنا لنا كنت خون تعرض بركة على هذا كرتان عارقنا ما ورمانا اللي قلب بالمقل جوجو وحلله MCA كاسكوت أسمبل جو impeachment مع عبد الوهاب بنا الله حياة قبيلة كده شان نقول بوار راسكي ماذا نبقى هاي ندى يشجع الملح وحلا ربع دم داسي مع الحرك سمان حيرة إلى ذا إيروس كل سنة نقط عدة هذه ورد كان أي هاي سان هذا قبيلة أجر ماذا حجرته وذيانا أجر مع عبدي وويل تذكر شيء لقب صد واحد جر الله شيء مركب واحد كويسين مع عبدي وأنا ما أعرف دليل وعري وحباب كتير وماشي لقاس ودورته بعد تدوركم علينين نبكم كاي بعد شيء جينين أسكني بالدماني شان الوصول دورتي برينا أسكني تربط هذه الملك قررت سيبجانا تين ملك قر كو ما نكد مع عبد كيتك سوقلي وجان عرا كجري الناس واو قذين ذوذي حديث بيحكي لك واو قذين راي الله تكلم جري اجوراني الناس واو قذين واحد ما نكد دموا قال الذوذي قال اجوران قال قرا برقه بعد كلا دوغا مذو iyo wax kala daaq mid meel nabada yaa la dhaco ma jira markaas soo kala aaculu dambe nabada loo dhacay mid aad barga wadiin maxaa abda qowricina waa maxaa abda qabiil aska dhashay dugadi aska dhashay Soomaali aska dhashay ayaga soo wada dhisay وقورعنا بركة داتا بريكو سوقرا وقفنا كان مقورعي مدي كو تاغاي نغني نما waxaan maqlay asbaal ka maray fururto magara fururto gooy baad gooy simagla bahal maray ay noqotaadahay warjidka wajida barka bilawdeer ka joogo wiilishina yaro Soomaalida ka joogo waa cusubanta shalay la soo dhisi bariyaad ka tiribtiin culaha ka abuuran qabalka dhaxdiska joogo tan taas kulli miisin ma 25 milyan oo word base Kenya sharcigeeda qori meeyeen waxa qoray Maxamed Cabdi 25 مليون oo walba warkiis ka imaado dadweynaha waa adeeg la dhahay ma idin jabkiina ma hen idin ka cuno qabiil ma siisin gaariyaal cadiyo guriyaas ka dhisateen wixii si qeyleysan hadana impeachment leedin kaya kale ka warhaysini BBI dan hadda soo socota ku maqlay 25 euro bes inay ku jirto laakiin ka horo 47 county meel ku jirto sheegan maxaa abdaaneen waa la waay idinka saan liin yaaliyo abaal go'd dadweynaha waa adeeg la dhahay aad dagaalama waxa waay aniga meesiyaalka gilaa marka dad madaxa oo odayaal leh oo war siyaasad ka dambeeya kuwa ayaga waxaan u sheegaa war hadda iska tigi rabta oo maxaa abdil dabadabeysa aad rabta inaad xirta aad rabta sida Mike Sonko Nairobi iska dhigta aad rabta inta badan la qabaa ku suurta guli mi hadda walaaltinimada taagan tahay dadka MCLka dheereey wala soo hadla ka joogo waxaan walaalayaal wajar cunna keenina ee wajar waxaan idin sheegaa kansalin ani waxaan jiraa 60 jiraan nahay Kenya markay doorasho horta ay kuru uridi ilaa maanta dhacdo kuran riday kansalinta hore oo la soo dooran jiray nima kansalinta la dhigi jiray dad odayaal ah la soo dooran jiray dad odayaal ah oo wadanka iyo dibkiisa iyo bini aadamka iyo qabiil iyo wadaninimo u naxa ayaa la soo dooran jiray safarta dhawaad reer wajar waxa dhacday dad yar yar oo 20 jiryaal ah la soo doortay ninka ugu weyn 30 jir yahay speaker-ga baarlamaanka ugu weyn ilaa ninka ugu yar 20 jir 25 jir 30 jir ugu weyn Soomaalidan waxay ku mahmaadaan 20 jir intaas geed ka booda ayaa talana ka booda
marka waxaanu arkaynaa annaga haddaan odayaasha nahnay nin waqti badan xukun kusoo dhex jirin aan nahay nimankan waxay u shaqaynayeen danahooda inay tahay halkan waxaan u taaganahay oon ka hor imaadsanahay impeachmentka ay wataan kansalayaasha lasoo doortay magaalo loo soo doortay kansalayaasha waxaa loo soo doortay in shacabka wax u qabtaan magaalada gaajaa jirtay alxamdulillahi roob hadda waa noo imaaday gaajo waa laga baxay inkastoo ay gaajada weli sii jirto ay dadka barkood waxba karsan karin maanta la joogo oo waxba aan kii afur karsi kii ku kala qurac karsan karin waxaan leenahay shicibki dhibkiisa maanta keenteen shicibka u baabay ahay magaalada waxa way dhibka hay idinku xal raayno soo hadashiin oo sadahdiin maxaa dhib oo jiro muslimki bi ahay waxa la raay idinka tasgarab siisiin oo meel u istaagteen dhan as gabana ku qabsatiin oo sadahdiin gabana maxaa shicib ku qabateen sadahdiin meesha idinka su'aal leedan gabanaga adinka dhibkiisa keenteen amaanta waxa la laba dib aday diraan la cooskiya bi ahay meesha waxa ku biihay shicibka ku biihay waxaan raa maslaxayn iskentiin waxaan isagaajin iska dhaaftiin idinka nin dhibig wahay malaha dhibkiisa idinka maanta keentiin shacabka wax u dhimi muslimka waa biihaya waxaan taakada ku haysiin taakada ka dhaafan dhir maanta meeshan waxaan u sheegayaa arrinta loo imaaday oo impeachment oo governor leeyahay idinka u nisaay MCS impeachment governorga kola lisokin dorti waa ninka kila governorga or 25 million word-based projects. It's not a law, Sharamaha. What in Favagrey, T. the Doitala, 25 million Kadanan, Kasta word Kisas Gishadi. It does Gili Adana, Nin in Tabaka Mala Governor in Matabaka. Executive Nin Tabaka Mala. Willie Governor is the best routine, impeachment again, into Sanya, a lady, Wahani Shega, MCS. dhammaan ugu kuma dadka arrintaas wada arrinta qala isku subinaysiin reer wajeer arrimo badan oo inka baahan jirta abaara jira wata tracking ajira dadkiina meel kala dheer jira da waqti roob lagu jira meel kala jiraan warka maysin magaaladaas joogtiin kama war haysin qoorkiina waxaan leeyahay wararka aada shaqada dadweynaha li soo dhiibo qabta nimiyow arrintan waa arrin xun waxaan dad madax oo la soo doortay waxa lidin soo doortana waa inaad dadweynahan u shaqeysaan maalin kasta dadkan abaar ay soo mareen idinkoo ka hadla lama arkin cudurro ajir idinkoo ka hadla lama arka maalin kastoo dantiin lidin maran weeyaba waxaad keentiin impeachment ma tiinad u shaqeysanaysiin mid dadweynaha loo soo lidin soo doortay u shaqeynaysiin waxaan u aragnaa Ilaahay ka cabsad waxaan u aragnaa inaad danihiin bas u taagantiin meeshan oo dadweyne shaqo ku leheen annaga dadweynaha nahnay cudurro ajir kama hadlaysiin abaarihi kama hadlaysiin maalin kastoo idinka danta asleedihiin ay meel idin mar weysan impeachment askintiin Ilaahay ka cabsada dad odayaal la tihiin shaqada lidin soo doortay kuma jirtiin dantiin aad u cabaadaysan u qeylinaysaan wadankana dantiin aad u duminaysiin wadanka dantiin u dumay hortiina assembly soo jiri gadaashiina jiri doona waxaan akolna ma soo marin waxaan nolol ma bil aadnimo ma dad madaxatiin sidaan dhaqan ma